Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Waa saaxiibadii Shaqla Shire. Maanta halkan waxaynu ka baran doonaa haddii la yidhaahdo midka toddobaad ee toddobada nooc ee dadka ee Ilaahay u hadhayn doono maalinta qiyaamaha ee aanu jiri doonin hadh kale oo aan ahayn hadhka Ilaahay. Waa qof isaga oo jooga keligiis meel soo xasuustay Ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa kadibna ay indhihiisu lilmeeyeen. Qofkaasi keligiis jooga oo aanu jirin qof kale oo uu istusayo ama eegaya, laakiin inuu keligiis yahay, keligiisna Ilaahay xasuustay subxaanahu wa tacaala ayaa ah qofka ka mid ah dadka uu Ilaahay u hadhayn doono qiyaamaha.